بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليال waxaan u ballansanay maanta xalqadii afraad ee barnaamijka fataawa ramadaaniya uu sheekheena sheekh maxamed cabdi umal uga jawaabo su-aalaha u badan bisha ramadaan iyo axkaamteeda. su-aasha 38aad sheekhana waxay leedahay: sheekh ciidda in dhar cusub la iibsado ma sunna? kee fiican in dhar cusub la iibsado ama qofku uu dharkiisii hore oo nadiif ah ku ciido? sheekh, in dhar cusub la iibsado ma sunna ciidda? kee fiican in dhar cusub la iibsado mise inuu qofku dharkiisii hore ku ciido? بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. عيد إن ليس قرحية وليس ديارية، ونقنك صحابة السلفك ruuxu wuxuu heli karo, dharka wuu heli karo, ama ha noqdo dhar la isticmaalay ama dhar cusub ha noqdo, kolba wuxuu heli karo waxa ugu fiican ayuu ku labisanaya. maxaa yeelay fi saxiixayn waxaa ku yimid cumar radia allahu tacaala canhu wa ardaah ayaa wuxuu arkay jubbad waa maro oo xariir ah, nooc xariirta ka mid ah, oo suuqa lagu iibinayo. nin baa iibinaya. nebigu u yimi sal alla alay wasalam wuxuu ku yidhi: rasuulka ilaahay, jubbaddaasi iibso si aad isugu qurxiso ciidda iyo markii wafdi kuu yimaado, wufuudda kuu yimaadaan. kadibna nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam: hada libaasu man laa khalaaqa lah. maadaama ay xariir tahay, waxaa ku labista dad aan aakharo waxba ku lahayn, laanna xariirta ragga muslimiinta looma ogola. nabigu marka ma diidin in ciidda laysu qurxiyo, wafdi hadduu kuu yimaadana laysu qurxiyo, laakiin marada ayaa xariir ah. mara ahaanteedu marka nebigu u diiday sal alla alay wasalam. cabdullaahi ibnu cumarna waxaa ka sugan in markii ciidda la gaadho uu ku labisan jiray axsana hiyaabihi, maryuhu heli karo kuwa ugu fiican buu ku labisan jiray. sidaasay muslimiintu kala dhaxleen. laakiin maradu ma cusub tahay mise waa maro la isticmaalay oo la nadiifiyey, wax farqi weyn oo u dhexeeya ma laha. waa ruuxa iyo karaankiisa weye. waxba yaraatee yani dhahaya hadda maro cusub ku labista ma jiro. والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخ. su-aasha 39aad sheekh, waxaan joogaa baadiye, mar walbana waxaan umulaa xilli ramadaan ah, waana awoodi waayey inaan qalleeyo. dhowr ramadaan ayaana isku kay gaaray, maxaan sameeyaa? masaladaa dhowr goor waa ka soo jawaabnay. haddii dumarku ay uur leeyihiin ama nuujinayaan, way afurayaan. soonkii gaar ahaan hadday wadi waayaan ama ilmuhu ku dhibaatoonaya ama iyagu ku dhibaatoonayaan, way afurayaan. kadibna markay fursad helaan bay qallaynayaan. haddii intuu soonku bato oo isgaadhgaadho oo markaa ay kari weyd, markaasi waxay qabsan kartaa madhabka saxaabada qaarkood, cabdullaahi ibnu cumar iyo cabdullahi ibnu cabbaas. sidoo kale uu maray alimaam muxuu ahay isxaaq ibnu rahwiy alxandali, oo waxay leeyihiin raashin bay bixinaysa. markaasal ahaan ijtihaadkooda iyadu waa taas. islaanta uur kale u afurtay ama umushiya
u afurtay iyo waxay leeyihiin raashin bay bixinaysaa marka laakiin waxa loo badan yahay way qalaynaysaa hadday marka qallihii kari weydo ayaa markaasi waxaa la dhahayaa markaa raashin bixi oo maalinkiiba hal miskiin wax ku filan maalmihii kaa tegay ku bixiyo masaakiinta u qayb wallahu aclam jazaak allahu khayran sheekh su-aasha afartanaad sheekh qof xanuunsan taleefon qur-aan ma looga akhrin karaa dadka xanuunsanaya in qur-aan la saaro ama adkaarta lagu akhriyo waa sugan tahay waana la isla gol yahay laakiin sida la yaqaanay ruuxa qur-aanka lagu akhrinayo waa inuu kula joogo kadibna aada ku tufto markaad akhridaba aada ku tufto saasaa la yaqaanaa laakiin ma jirto culimmadii horena kama hadlin wax la yaqaanayna ma aha ruux kaa fog intaad telefoon u dirto ama khadka kala xidhiidhood meeshaa qur-aan ku akhrido inaad halkaa kaga tufto wax la yaqaana ma wax horey u jirayna ma waxa la yaqaana tufmada rasmiga shareecadu taqaano waa ruux kula jooga oo aad ku tufayso ood akhrinayso ood ku tufayso leanna tufmadaasaa yaa waxa weeye ayaa muxuu ahay la socota akhrinta ruuxaan kula jooginna tufmadaadu gaadhi mayso ruuxaan kula joogin tufmadaadu ma gaadhayso sidaas daraaddeed masaladaasi mas'alo salle maaha hadduu ruuxu marka uusan kula joogin u ducee ducada sax ducadu iyadu male ama kula joog ama ha kaa maqnaado laakiin tufidda adkaarta iyo qur-aanka laysku tufayo ruux kula jooga ayay ku soo aroortay asal ahaanna sidaas weeye wallahu aclam jazaak allahu khayran sheekh su-aasha afartan iyo koowaad sheekh kee fadli badan in qur-aanka laga akhriyo musxaf iyo in laga akhriyo telefoon musxaf inaad ka akhrido iyo inaad kitaab ka akhrido meel unbaad ka akhriday qur-aanku meeshu ku qoran yahay ama looxa ku qornaado ama waraaqa ku qornaado ama qalabkan electroniga muxuu ahayaa ka muuqdo oo ha ku jiro waa uun shay baad ka akhrinaysaa taa marka tanaa tan ka fadli badan lama dhihi karo waa uun akhri shay meel baad ka akhrinaysaa laakiin culimmadu miday ka hadlaan wax weeye inaad xifdi ka akhrido oo adoo xifdisanaad kor ka akhrido iyo inaad ka akhrido misxaf iyo meeshii qur-aanku ku qornaa kee fadli badan bay ka hadlaan oo qolaba si fadilaan in badanna ay fadilayaan inaad misxafka ka akhrido xataa xifdisanta haddaadan markaa ka yaabaynin inaad halmaanto qur-aankii haddaad muraajacaynayso meesheeda ama inaad ka akhrido mobile inaad ka akhrido meel uu ku qoran yahay inaad alwaax ka akhrido loox ka akhrido farqi weyn ma laha taqriiban waa meel uu ku qoran yahay qur-aankii baad ka akhrinaysa wallahu aclam jazaak allahu khayran sheekh su-aasha afartan iyo labaad sheekh qof ayaa qof gubay qisaastiisa ma laga dhigi karaa in isna la gubo masalada ah ruux hadduu ruux gubo oo uu dilo uu dab ku dilo saa ku gubo oo ay noqoto in la qisaaso qisaastiisuma waxay noqonaysaa shaygu wax ku dilay in lagu qisaaso mise waxay noqonaysaa in laga wareego oo ama la toogto ama muxuu ahay wax kale lagu dilo masaladaasi waa masalo khilaafiya in hadduu wax gubo oo gubitaan wax ku dilo la gubayo isagana waxaa qaba shaaficiyada iyo maalikiyada waxayna leeyihiin qisaastu asalkeeda shayga lagu dilay hadduusan xaaraan ahayn asalkeedu waxay ku salaysan tahay yani bilmithli mumaathala in isku mid noqdaan oo shaygan ruuxan kadaasi wixii uu geystay wax la mida loo geystay waxayna daliishanayaan aayaadka qur-aanka ilaahay leeyahy tabaaraka watacaala wain caaqabtum facaaqibuu bimithli maa cuuqibtum bihi bimithli haddaad wax ciqaabaysaan tii laydinku ciqaabay mid la mida ku ciqaaba wajazaau sayi'atin sayi'atun miluha
ayadaha cumuumkooda ay daliishanayaan waxay leeyihiin ruux hadduu dab wax ku dilo oo naf ku dilo isagana dabkii baa lagu dili kara qisaas ahaan ayaa loogu dili karayaa bay leeyihiin axaadiista ku soo aroortay nebigu xadiis dhowra ka sugan oo uu leeyahay dabka cid aan alla ahayn wax kuma ciqaabi karto laa yucadibu binnaari ilaa rabu nnaar dabka waxaa wax ku cadaaba allah keligii tabaaraka wa tacaala marka waxay leeyihiin axaadiistaa ku saabsan dabka layskuma ciqaabo waxay ku saabsan tahay cuquubada caadiga ah laakiin hadday qisaas tahay oo dil ka dhalatay markaasi ma aha cuquubo ma ahee waa xad sharci oo la fulinayo waay halkaasay marinayaan masalada iyada ah wuxuu ahayey waxaa kaloo daliishanayaan axaadiis daciifana way daliishanayaayo man xaraqa xaraqnaahu oo kale iyo waman qaraqa qaraqnaahu xadiis noocaasna way daliishadaan oo daciif sidii ahaantiisa masaladaasi marka waa masala khilaafiya madhabka shaaficiyada iyo maalikiyaduna way qabaan qolyaha kale xanafiyada iyo xanaabiladu iyagu maya bay leeyihin oo cumuumka aayadda waxay ku khasisayaan axaadiistan oo waxay leeyihiin aayaddu waxay tidhi yacni wixii laydinku ciqaabay ku ciqaaba laakiin axaadiista nebigaa sheegtay inaan dab laysku ciqaabaynin saas daraaddeed axaadiistaa ka soo reebtay dab layskuma ciqaabi karo lagumana qisaasi karo ruuxa waa madhabka xanaabilada iyo xanafiyada iyo ay qabaan masaladu marka masalo khilaafiya weeye waxay marka ku xidhan tahay beledka isaga ah ee qisaastu ka dhacayso maxkamadaha ka jira iyo fuqahada madhabka laga haysto ayaa markaasi masaladu u noqonaysa kolba qaadiga arrinta gacanta ku haya iyo maxkamaddu waxay xukunto ayaa la marayaa hadday xukunto tiraahdo dab ha lagu gubo waa sax oo waa weji jira waa madhab jira hadday tiraahdo maya oo madhabka kale uu rajaxa qaadiguna masaa-isha ijtihaadiga ah ee inta badan qadaaga iyo maxaakimta looga dambeeyo ayay ka mid tahay wallahu aclam jasaaka allahu khayran sheekh su-aasha 43aad sheekh hooyaday oo dhimatay ayaan rabay inaan qabrigeeda soo dhiso ma dhisi karaa ma bannaanta in qubuuraha la dhiso maya qubuuraha lama dhisi karo qubuurta lama dhisi karo bal dhismo iska dhaafay xataa carro siyaada inta lagu aaso kor looma qaadi karo fii saxiixi muslim nabigeennu wuxuu reebay sal alla alay wasalam in qubuurta la dhiso fii saxiixi muslim kadalika cali bni abi aalib wuxuu ku yidhi abulhayaaj oo miyaana kula dirayni wixii nebigu ila diray sal alla alay wasalam muxuu ahaa waxyaaluhu nebiga la diray waxaa ka mid ah cali bn abi aalib qabri sarreeye haddaad aragto kor u dhisan dhulka la sim kii dhisnaa ayaa haddii la arka ay tahay in la dumiyo oo dhulka lala simo ka la aasaya laftiisana carradii ka soo baxday laga soo saaray unbaa dib loogu celin taaka wax yarana kora loo qaadayaa si daadka iyo biyaha iyo basa uu dhinac uga maraa laakiin wax kale laguma kordhin karo sababta loo diidan yahay qubuurta in la dhisana waxa weeye bini aadamku wixii ugu horreeyey ee uu ku fitnoobay oo shirkigu ku yimid qubuurtay ahayd dad saalixiin oo la aasay ayaa asalka shirkiguba ku yimid bini aadamka meesha laga soo galay halkaa waa sidaas daraaddeed maadaama ay dariico u tahay oo shirki uu keeni karayo shareecadu waxay tihi qubuurta lama dhisi karo waa tan hadda ad arkayso meelaha aan dacwadu ka hirgelin dadka qubuur baa u wada dhisan qubuurtaasaa marka la caabudaayo xawaa'ijta iyo lala aadaa oo loo roob doonaa oo kii ilmo waaye uu dul fadhiistaa oo wixii ilaahay lahaa lala aadaa haddaan la dhisi lahayn qubuurtani qabri caadiyan buu iska noqon lahaa laakiin markii la dhisay ayay dadkii waxay u qaateen in meesha wax ku jiro maxaa loo dhisay waayo calasaani waxbuu dadka la dheeriya waxaa loo raadsadaa timidan marka shirki ayay furo u noqotay ama irid u noqotay saasay shareecadu u diiday nebigu sal alla alay wasalam waa diiday qubuurta in la dhiso inteedaa lagu ekaynayaa allahuma haddii daruura timaado meesheeda nacam jasaaka allahu khayran sheekh su-aasha 44aad sheekh maalin ramadaan ah qofku hadduu riyoodo oo ay biyo ka soo baxaan
marka biyaha ay soo baxayaanna uu soo kaco biyaha bixitaankoodana uu macaansado soonku ma ka burayaa mise wuu jiraa? biyaha hadday soo baxeen ooy qarow iyo adoo hurdo kaa soo baxeen soonkaaga horta waa sax bilijmaac. qarowga biyaha ku yimaada soonka ma jabiya. haddii marka aada soo boodo iyagoo soo baxay kadibna aada dareen qaaday biyaha miyaad celin kartaa? biyo soo baxay miyaad celin kartaa? ma celin karti. dareenkuna waa shay iska dabiiciya waay. biyo kaa soo baxaya inaad dareento waa shay iska dabiiciya, inaad macaansatona waa shay iska dabiiciya, laakiin biyahan ma celin kartid. markay soo baxayeen adiga sabab maadan u ahayn, see marka soonkaagu wax ku noqonaya? iska macaanso, soonkaaguna waa sax. allahu aclam. jazaak allahu khayran sheekh. su-aasha 45aad sheekh, ictikaafka tobanka dambe qofka ma u bannaan tahay inuu hameenkiina ictikaafo maalintiina uu soo shaqaysto? haa, way bannaan tahay. asal ahaan nabigeenu sal alla alay wasalam habeen iyo maalin buu ictikaafi jiray tobanka dambe, masaajidka muusan bixi jirin. laakiin ruuxu khiyaar buu leeyahay. hadduu doono maalinkii wuu iska shaqaysan karaa, habeenkii keliyana wuu ictikaafi karaa. waxaa ku sugan fi saxiix cumar ibn khataab radia allahu tacala canhu ardaa ayaa nebiga wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow waxaan nadray inaan habeen ku ictikaafo masjidulxaraamka. nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam awfi binadrika, nadarkaaga oofi. marka hal habeen waa hal habeen inuu ictikaafo nadray, nebiguna oofi buu ku yidhi fuli nadarkaaga fuli. marka hal habeen waa la ictikaafi karaa, bal ka yar baa la ictikaafi karaa. fuqahada saddex ka mid maalikiyada marka laga reebo madaahibta waxay leeyihiin aqallu muddo oo la ictikaafi karo waa waqti koobanba, saaca iyo wax ka yar. waqti yar buu ruux intuu ictikaafo oo niyeysto waa haddana iska tegi karaa. waxay leeyihiin ictikaafka shareecadu waa shay mashruucoo jidaysay qur-aanka iyo sunnadu, laakiin muddada la ictikaafaya xad looma sameeyo. xadda ugu yaroo la dhahayo xadkaa lagama yarayn karayo kuma soo aroorin shareecada, kuma soo aroorin. mar haddaan xadka ugu yarayna shareecadu sheegin, waktigu ha yaraado ha bato waad ictikaafi kartaa. haddii muddada aad ictikaafsan tahay aada doonayso xataa daro inaad aada lafteeda, alimaamu axmed wuxuu leeyahay ishtarit, markaad ictikaafka galaysa niyeysanayso shardi dhigo, shardigaagu waa ku anfacaya. ilaahu haddii islaanta iga xanuunsatay waa u baxayaa, shardigaa dhigo. haddii carruurtu istaan iga galaan waa aadaya, shardigaa dhigo. haddii muxuu ahay dan kale ay soo gasho oo aan ka maarmi ilaah waa aadaya, dhigo. shardiga agaad leedahay buu leeyahay imaam axmed caleyh raxmatullah. sida xajkoo kale, xajka markaad gelayso shardi laba dhigto. shardiga cibaadaadka qaar baa lagu ogolyahay inaad shardi dhigato, shardigaagii baad marka fushan karaysa. taas weeye marka wakti yar iyo wakti badan intaba waad ictikaafi kartaa. ama habeenkii ictikaaf, maalinkiina waad danaysan karaysaa, wax mushkila ama leh. wallahu aclam. jazaak allahu khayran sheekh. su-aasha 46aad sheekh, aabbahay ayaa wuxuu tegay maraykanka, annagana afrika ayaan joognay. aabbana nama kaxayn karin, waxaana kaxeeyey abtigay oo aabbe inuu noo yahay naloo ku qoray. arrinkaas ka waran? wax weynu hadda samaynaysa ma jirto, maadaama hadda aad tagteen. abtigiin unbaa been sheegay, xoogaa khayaano iyo laqdabana samey. laakiin idinka hadda maraykankii tagte, haddaad degan tihiin ood meeshii tagteenna waxay u baahan tihiin uun idinka inaad uun isaguna wixii khalada uu galay ilaahay dembi dhaaf weydiisto, idinkuna uun fitnadaana iska ilaalisaan, ilaahayna ka baqdaan unbaad u baahan tihiin. laakiin waa wax dhacay, hadduu dhacayna ninkii sameeyey wixii khalada uu ka galay ilaahay dembi dhaaf ha weydiisto. wallahu aclam. jazaak allahu khayran sheekh. su-aasha 47aad sheekh, ictikaafka tobanka dambe ee bisha ramadaan qofka isagoo ictikaafsan afur ma ka doonan karaa meel masjidka ka baxsan
haddii uu doonto ictikaafkiisa meeshii miyuu ka sii wadanayaa mise uu ka burayo haddii uu cunto doonto meel masaajid ka baxsan u doonto ictikaafkii ma meeshii uu ka wadayaa mise uu ka burayo ictikaafku waa laba ictikaafku waajib ah iyo ictikaaf sunno ah way kala adag yihiin ictikaafka waajibka ah waa midka nadarka ku yimid hadduu ictikaafkaagu nadar ku yimid waa ictikaaf waajiba sidaas daraaddeed waxaad u bixi karto waa wax laga maarmaan ah keliya cunto waad u bixi kartaa cabitaan waad u bixi kartaa aad u baahatay musqul waad u bixi kartaa wayso waad u bixi kartaa qabays waajib waad u bixi kartaa wixii aan waajib ahayn ama laasim ahayn uma bixi kartid hadduu ictikaafkaagu sunno yahay ousan laasim ahayn sida ictikaafka 10 dambe ramadaan oo kale laasim maaha waa sunno hadduu noocaa yahay sida fiicani wax weeye inaadan u bixin wixii aan laasim ahayn sida fiican wixii laasim isaga waa loo bixi karaa laakiin haddii aad baxdo oo dan u baxdo oo aadood soo danaysato oo ictikaafkaagii ma burayo ictikaafkii ma burayo laanna almutatawwicu amiiru nafsihi waa mar haddaad camal sunna ku jirto يعني wax weeyaan camalka sunnada iyo ka waajibka isku mid ma almuhim marka la soo ururiyo wixii dana ah ee laga maarmaan ah waa loo bixi karaa ictikaafkaaguna ma jabayo waad u soo noqon haddii aad masaajidka dhexdiisa wixii danahaaga ka heli kartana inaadan bixin baa habboon oo meeshaada aad ku jirto ilaa muddada ictikaafku u dhammaato haddaada ka heli karaynina meesha ku xidhnow lagu dhihi maayo cuntada raadso oo waysada haddaada meesha ka heli raadso qabiiska waajibka raadso oo wixii duruuf iyo dana ah intaad soo gudato waad soo noqon kartaa ee laga maarmaana wallahu aclam جزاك الله خيرا شيخ سؤال فرتني سديدات شيخ ويل يا جبر أجنبي كلا لفتي هدي وضع راعان كليجود مخلوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم نينكو يسنهوين يلقون نقول أجنبية إلا إنه محرم للصعود مويه رواية الترمذي وحي لا دحي لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان يعني النيل يسهوين لقون نقول أجنبية إلا هدو لقون النقضوا الشيطان بأصدح يبو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو كالشقين يا إني ضمانتي كل عام سوق القالين خلوه محل إلى ذمك خلوده ay diidan tahay shariicadu maxay tahay meel kasta oo nin iyo haweeney ay ku cidlaystaan oo indhaha ka qarsoon oo aan la arkayn oo wuxuun ay ku samayn karaan khalwa leeyahay marka liftiga haday isla galaan oo liftigiina iridal xidho oo labadooda kaliya yihiin soo laba ruux ajnabi kala oo kali ku ameel ma oo uma xidna maxay samayn karaan wax weyn hadday samayn karaan hatta waxyaalo yar yar way samayn karaan magarad hadayna hatta wax weyn ka gaarsiin karin wax yar way samayn karaan sidaas daraadeed sida saxiixa waa khalwo waa arinkaasi waa khalwo dad badan kuma baraarugsana hadday haweeney kaliya liftiga ku jirto ha gelin ha kuu soo noqdo wakadalika hadday haweeney tahay hadduu nin ku jiro keligii yahay ha sugto ha u soo noqdo laakiin nin iyo haweeney ajnabi kale ah lifti inay labadooda keliya isla fuulaan waa khalwadii shareecadu diiday waaye hadday haweeneyda la weheliyo oo mid kale la socoto dhib male haddii ninka la weheliyo oo ninka lala socdo dhib male لكن واحد الاثنين لبضوضة وكليه نعم جزاك الله خيرا شيخ سؤال شافرتني سيارات شيخ هدانا الصوم كان يسن
laakiin aan soo kaco oo tahajud tukado kadibna aan suxuurto intaas niyadda ma iga filanta? niyada soonka horta waxaa la yidhaahdaa waa qasad iyo ku talagal waaye, waa doonitaan. niyada soonku wax la akhriyo ama wax qallabsan ama wax adag ama wax la raaraadiyo ma aha. niyada soonka ee laga hadlayo habeenkii waa inaad niyooto wax weeye, waa in qalbigaagu uu jiro talagal aad ku talagashan tahay inaad berri soomayso. talagalkaasi marka qalbigaagana waa ku samayn kartaa, waa ka dhici karaa, xubnahana waa ka dhici karaanoo haddaad soo kacdood suxuurato maxaad u suxuuranaysaa? ya ma quraacanaysaa? xilligaa lama quraacdo. waxaad u suxuuranaysa yani qalbigaaga waxaa ku jiro talagalkaagu yahay inaad berri soomayso, soo maa? khalaas intaasi waad niyeysan tahay marka, way iska caddahay inaad niyeysan tahay inaad berri soomayso. marka yani suxuurtu waxay ku tusaysaa, waa ficil ku tusaya, ku talagal iyo niyo ku tusaya. waa intaaba haddaad samaysay bimacnaa soonkii waad niyeysan tahay. nacam. jasaaka allahu khayran sheekh. su-aasha kontonaad, sheekh nikaax aysan wada joogin weliga sheekha wax nikaaxaya, ninka wax loo nikaaxayo iyo gabadha la nikaaxayo oo hab online ah u dhacaya ma saxda? masaladaasi culimmada mucaasiriinta ah ee jooga badankood way diidan yihiin. waxay leeyihiin telefoonka iyo video callka iyo muxuu ahay waxyaalahan ay baraha bulshadu ku xidhiidho kuma dhici karo, caqdiga guurku kuma dhici karo. yacni wax weeyaan waxaa ku dhici karaya wakiilasho ruuxii meherka kuu aqbali lahaa ama ninkii gabadha meherin lahaa inaad ku wakiilato telefoon oo xidhiidh ku wakiilato waa sax, laakiin meherka laf ahaantiisa waan ku siiyey iyo waan aqbalay kuma dhici karay leeyihi majmuc alfiqi alislaami iyo hay'at kibaar alculamaa iyo culimo badan saasay qabaan. maxaa yeele waxay leeyihiin yani guurka waa loo dadaalaa, ixtiyaad baa loo sameeyaayo wasaa-ishan lagu xidhiidhana waxaa geli kara wax la yidhahdo talaacub iyo ciyaar iyo taswiir iyo yani waxa weye sawdkii baa la jili karaa, sawirkii baa la khaldi karaa. shuhuuddii iyo markhaatiyadii laftooda waxay u baahan yihiin caqdigan dhacaya inay arkayaan oo ay goobjoog ka yihiin dadka isguursanaya waxa laysu guurinayo. marka shuruudaha marka la fiiriyo waxay leeyihiin guurku waa inuu u dhaco si life ah, iyadoo la wada joogo oo ama dadkii guurinaya kii guursanayay ama wakiiladoodii iyagoo joogo waa inuu guurku dhaco, laakiin laysuguma guurin karayo muxuu ahaayey wasaa-ishan tawaasulka guurku iyo meher kuma dhici karayo. saasay u badan yihiin. sheekh ibn baas caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay iyo culimo kale, haddii laga aamin noqdo in wax isdabamarin iyo muxuu ahaayey talaacubka noocaasa haddii aamin laga noqdo oo markhaatiyadiina ay arki karaan dadka isguursanayo, muxuu ahaayey dadka isguursanaya iyo guurka iyo dhicitaankiisana sidii life oo kale uu noqon karaayo la khaldi karin, haddii aamin laga noqdo cabsida noocaas oo kale ah wuu ku mehersami karaa, waana ku dhici karaa. sheekh ibn baas baa qaba adiga almuhim masaladaasi haddii cabsida la qabo ay meesha ka baxdo, wixii wax la hubo oo sida life oo kale iyadoo la wada joogoo kale ay u muuqan karto oo in wax la khalda wax la istamariyo ay markaasi ay aad u yartahay ama ayna suurtagal ba ahayn, markaasi guurku waa ku dhici karaa. laakiin cabsi ah waxaa jirta oo culimmadu muujinayaan in wax la isdaba marin karo. guurkana waa loo taxadaraa, waa furuuj, waa xubin yani xubno la banaysanayo, taxadar badan buu u baahan yahay. almuhim masaladaasi marka waxaa loo badan yahay inuusan guurku ku guntamaynin telefoonka iyo wixii la mida iyo muxuu ahay baraha bulshadu ku xidhiidho, ee ay tahay si toosa in laysu hor fadhiisto. wallahu aclam. jasaaka allahu khayran sheekh. su-aasha konton iyo koowaad,
sheekh gabar ayaa aabbaheed oo maqan laga dalbaday inuu fasaxo meherkeeda. sheekhii meherinayay ayuu u sheegay gabadha la meherinayo mid aan ahayn magaceeda. gabadha magaceeda uu sheegay waa mid kale oo uu dhalay aabbuhu. sheekhii gabadhii wuxuu ku meheriyey magacii uu aabbuhu sheegay, qasadkuna magac kale ayuu ahaa. ma waxaa mehersamaysa midda magaceeda la sheegay mise midda awal la doonayay laakiin aan magaceeda la sheegin? mas'aladaasi fuqahadu way ka hadleen. gabadhii la guurinayay ayaa mid kale lagu sameeyey magaceeda. caashuu rabay inuu guuriyo, kadibna tu kaloo uu dhalayo faadimo la yidhaah ayuu magaceedii ku guuriyey. tan la guurinayana caashaa la dhahaa. marka gabadhaydii faadumaan kuu guuriyey buu yihi, caashuuna ka wada. marka ma gabadhii yarayd batii macaashaa guursamaysa mise faadumaa guursamaysa mise guurku maba jiraba? intaa kee wey? meeshaasay marka fuqahadu isku khilaafaya. waxay leeyihiin qaarkood sida xanafiyadoo kale guurkaasi midda la magacaabay ayuu ku dhacayaa. qaarna waxay leeyihiin maya ee midda loo qasto niyada lagu hayo lagu heshiiyey ayuu meherku ku dhacaya, magacan khaldamay macno male. qaarna waxay leeyihiin guurka dhanba maba jiraba, waa in lagu noqdo. saddexda ra'yi buu jiraa. almuhim meesha masaladu ay ka duulayso waxay tahay ruuxa la guurinayo, gabadha la guurinayo waa in la xadido midda ay tahay. waa in magaca gooniya lagu xadido ama tilmaan lagu xadido ama ishaaro iyo fartoo lagu fiiqayo joogto lagu xadido. waa inayna wax iska ahayn yani dadka wax cid kale ku khaldami karta waa inaysan ahayn. haddii marka sifaad ay kaga soocmi karto dadka kale la sifeeyo, sidaasi waa ku meelsamaysa. hadday marka ishtibaah galo oo markaa qasanto oo la garan waayo, markaasi sax meherku ma dhacay. tan marka haddaan usoo noqono, haddii gabadha la guurinayo sida taqriiban ila xoog badan wallahu aclam, gabadha la guurinayo aabbaheed iyo ninka guursanaya iyo markhaatiyaduba isla garanayaan, laakiin magaca keliya uu khaldamay, magacan kaata waxba ma bedelayo. laana markhaatiyaduna way garanayaan soo ma, markhaatiyadu way garanayaan. xaliimaa la guurinaya, kan guursanayana wuu garanayaa, gabadha loo guurinayo wuu yaqaanaayo, xaliimana waa la dhahaa, shakhsiyadeedana wuu yaqaana. odayga gabadha la guurinayana magacu haba ka khaldameen, laakiin gabadha xaliim uu ku socdaa. saddexdaasiba hadday isla garanayaan, magacan khaldamay waxba marka ma bedelayo. maxaa yeelay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu qur-aanka inoogu sheegay wixii carabku idinka khaldo idinka qabasho mare waxaa laydiin qabanayaa qasadka, walaakin maa tacamadat laa junaaxa calaykum muxuu aha fiima akhta'tum bih walaakin maa tacamadat quluubukum. marka wixii carabka kaa mara wax ka soo qaad ma leh. in la isla garanayo gabadhu xadidan tahay unbaa muhiima. intaa haddii la helo waxaan kale mushkilo male. haddii intaa la waayo oo gabadhii aan la garanayn, markhaatiyadu ma garanayaan, kan guursanaya ma arkin, dadkana kama yaqaano, faadumo iyo caasho ma kala yaqaano, odaygiina waa khaldamay, markaasi waxa weeyaan meherku ma dhacayo. tanna ma mehersamayso, tii kalena ma mehersamayso. sababtu maxay tahay? leanna qasadka weliga gabadha dhalay qasadkiisu meel buu jiraa, afkiisa wixii ka soo baxayna meel buu aaday. qasadka iyo hadalku markii isgarab marana qasadkaa xoog badan. sidaas daraaddeed meel cidla buu ku dhacay qasadkiisiiyo waxba laga soo qaadi maayo, ciidina mehersami mayso, gabadha meherkeeda waa lagu noqonaya. haddiise laakiin la isla garanayo gabadha way mehersan tahay, magaca khaldamayna waxba laga soo qaadi maayo. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran sheekh. su-aasha konton labaad, sheekh xaaskayga haddii anoo hurdo ay imaamulato kafaaro ma layga rabaa? ma suurtagal baa nin hurda inay xaaskiisu isticmaasho ousan iska warhayn? waa cajiib waay. allahuma aqaano dadka qaarkoodoo saa u hurda weyn hadday jiraan,
oo haddii la isticmaalayo oo laga shaqaysanayo iska warhayn kaa hadduu jiraanin baqa markii hore masalada markii sidaas oo kale la yidhaahdo yacni siday suurtagal ku tahay bay adagtahay inay kaa dhaadhacdo laanna muxuu ahay marka shahwada la gudanayo la xaajo gudanaya yacni adoo hurdoon is-ogeyn oon xaajadaha lagaa guto waxoogaa bucdi badan baa ku jira ma rumaysteen laakiin markii dambe waxaan arkay culimmadoo ka hadashay culimmada inay dhici karto baa ka hadashayoo xanaabilada iyo shaaficiyada rooyaani iyo ibnu caqiil iyo ibnu qudaame iyo way ka hadleen sidanay uga hadleen waxay yidhahdeen ninka isagoo hurda haddii islaantiisu isticmaasho soonkii ma ka jabay mise kama jabay marka haddiiba la qadaraba inuusan isgaranaynin oo isagoon isgaranaynin xaajada laga dhammaysta soon ka jabi maayo soonku ka jabi maayo maxaa yeelay mana qasdin ama waa naasi oo waa ishalmaansan yahay ama waa mukrah iraado iyo ikhtiyaar male ruux mar hasuusan iraado iyo ikhtiyaar lahaynna soonkiisu jabi maayo kafaara ma ku waajibaysaana iska badaa laakiin islaantan hadday soomanayd soonka iyada waa ka jabay say u badan yihiinna kafaaray ku waajibinayaan waa haddii la yidhaahdo masaladu waa suurtagal laakiin yacni shaki ma laha ugu yaraan shaqadu markay bilaabato ruux waa soo kacayaa jirkaagaba haddii la taataabto soo kici maysa marka allahuma aqaarida bini aadamkaa kala duwan oo iska dhici kartaa maadaama culimmadu ka hadleen mid hurdo weyna waa iska suurtagal oo aan iska warhaynin markii jirkiisa laga shaqaysanayo waa iska suurtagal inuu jiro oo dee nebigaba sal alla alay wasalam waa tii gabadha usoo dacwootay oo ninkeedii ku dacweysay 3 arrimood oo ay ka mid ahayd rasuulka ilaahay oo salaada subax ma tukado wuu i garaaca salaada subaxna ma tukado soonkana wuu iga jabiyaa bay tiri 3daa kiis bay kusoo ogtay nebigu sal alla alay wasalam ninkiiba u yeedhayoo warran baa la yidhi arrimahanaa kaa yaalle wuxuu rasuulka ilaahay waa runteed 3daba waa runteed horta soonka waan ka jabiyaayo anoo jooga oo u baahan bay soon sunno ah soontaa buui kadibna maalinnimadii baa shaqadayda ka gutaa buui soonkeeda maxaa iga galay aniga ayadii baa waxaa lagu yidhi ninkaagoo jooga soon sunno ah soomin ta labaadna waan garaacaa buui oo maxaad u garaacda qur-aanka in aan ka aqaano bay iga akhrisataa buui naa qur-aankayga ii daawa ka kari waayo marka nabigu sal alay slam wuxuu ku yidhi war gabadha qur-aanka adiguna akhrisa iyaduna way akhrisanay gabadha garaaca ka da tan saddexaad aan u soconna waxay ahayd salaada subax waa run buu yidhi ma tukado barqkii baan tukadaa oo maxaa dhacay wuxuu yidhi aniga qoys hurdo weyn baan ka soo jeedaayo haddaan seexanno barqi dhun baan kacnaaba nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam markaad soo kacdo uu tuka buu ku yidhi nebi sal alla alay slam marka dad hurdo weyn waa iska jiri karaan oo laga yaabo arrimahaasi suurtagalka yihiin almuhim hadduusan ruuxu iraado iyo ikhtiyaar isagu uu leeyahay uusan ku samaynin shayga soonka jabinaya ma jabinayo wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh su-aasha 53aad sheekh qof baa alaab iga gatay wuuna qaatay alaabtii kadib wuxuu igu yidhi ila gad alaabtii ayaan la gaday lacag yarna waan saarsaday lacagtaas yarna waan u sheegay isaga arrinkaas ka waran sheekh dhib male haddii ruuxu ama alaabta markii hore kaa gato ama meel kale ha ka keensadee alaabtan ii gad uu ku yidhaahdo khidmad aada u sheegtay oo ogii oo raalli ku yahayna aada saarato ood sidaa ku gaddo dhima laha laanna waa adeegaagii iyo shaqadaad u qabatay khidmaddeeda way keliya uuna haddaad dukaanka aada ku gadayso aada adigu aadan lahayn ood shaqaalo ka tahay dukaankana aada ku gaday markaasi wax weeyaan waxa meeshaa kaa soo galay iyo alaabo dad kale leeyihiin in dukaan dad leeyahay aada ku gaddo waa khalad
haddaad laakiin adigu dukaanka leedahay ama bannaankaaba aad ka gado wixii khidmeed ka hesho oo uu kula ogyahay raalli ku yahay wax dhiba ma laha wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh su-aasha konton iyo afraad sheekh sakaatulfidriga ma u diri karaa qof meeshaan jooga meel aan ahayn jooga asalka zakaatulfitriga iyo sakada xoolahaba sakada xoolaha ka go'da iyo sakada jidhka ka go'da fitriga labadaba asal ahaan waxaa u leh meesha aad joogto ama xooluhu joogaan masaakiinta joogta ayaa iska leh tucma lilmasaakiin masaakiintaasaa iska leh asal ahaan allahuma hadday maslaxo sharciya timaado mooye haddii maslaxo sharciya timaado marka waa la diri karaa meel kale waa loo diri karaa maslaxada sharciga maxaa ka mid ah meesha aad joogtaba masaakiin zakaatulfidri qaadata maba joogtaba yurub iyo maraykan iyo waddamada qaarkood miskiin raashin kaa qaadanaya maba jiraba waa diri markaas matalan meesha aad joogto masaakiinta joogtaay waxay helayaan yacni waxoogaa wax ku filan bay meelaha ka helayaan laakiin meel waxaa jirta ka baahi badan oo muslimiintu matalan qaxooti gaajadoodu daran tahay masaa'ib iyo abaaro meel muslimiintu halis ku jiraan baa jirta meeshaasi ka baahi badan ee duruufaha adag ka jira waad u diri kartaa oo meeshaad joogto waad ka diri kartaa matalan waxaa u dheer ruuxii waa baahan yahay laakiin qaraabanibaa u dheer dad qaraabaa waay ayadana waad u diri kartaa leanna qaraabada waxa la siiyo laba ajir baa ku jiro sadaqo iyo qaraabo xidhiidhin hadduu marka baahan yahay waa ka mudan yahay dadka kale haddii marka maslaxo sharciya ay timaado waa la diri karaa haddayna maslaxo sharciya jirin oo loo diro asal ahaan zakaatulfidriga iyo midda xoolaha ka go'daba meeshaas masaakiinteedabaa asal ahaan xaq u leh wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh su-aasha konton iyo shanaad sheekh zakaatulfidriga haddii lagu bixin kara qiimo ma waxaa lagu qiimeynayaa qofka soo dirayo meeshuu joogo matalan qof maraykan jooga hadduu dhaho laga bixiyo lacagta maraykan baa lagu qiimeynayaa doolara mise tan kenya zakaatulfitriga horta masaakiinta waxaa la siinayaa waa raashiin siday culimmadu u badan yihiin lacag in la qaybiyo waa madhabka xanafiyada iyo culimmada qaarkood laakiin looma badna waqtigii nebigana ma jirin sal alla alay wasalam marka haddii la yidhahdo raashiin baa lagaa rabaa meeshaa aada raashiinka ka bixinayso raashiinka yaalla lacagtiisaad diri halkaasunbaa laga iibin masaakiintaa la siinaya haddaad maraykan joogto maraykanna ay 3 kiilo ay matalan ka tahay $5 ama $6 africa aad u soo diraysa africana ay ka tahay $3 baa lagaa rabaa laanna adiga si adaba lacag bixi laguma dhihin raashiin baa bixi lagu raashiinka meeshaad ka bixinayso adiga ama $6 ha kugu joogto ama $1 ha kugu joogtee waxaan kaa rabnaa sac raashiinaan kaa rabnaa sac raashiinaa lagaa rabaa soo ma haddii raashiin aad bixinayso saacii raashiinkaad meeshaad ka bixinay meesha laga bixinayo masaakiinta laga siinayo qiimaha uu ka joogaa lagaa rabaa adduunka meeshaad doonta ka joogo allaahumma haddaynan meesha ku jirin bay yidhaha culimmadu xeeladaysi haddaynan ku jirin marmarba xeeladaysi galaan oo dadka qaar waxaa jira bakhaylooho yacni gacan adag oo waxaa laga yaabaa meeshiisoo kale inay masaakiin joogaan raashiinkii uu ka bixin karo laakiin qaali uu yahay inuu ka cararo meel raashiinku rakhiis ku yahay inuu u cararo isagoo muxuu ahay wax dur maslaxo kalifaysa ayna jirin marka waxa weeye asal ahaan meeshaad doonta ka bixiya raashiin baa yaad bixin siday culimmadu u badan yihiin wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh ictikaafka maxaa buriya ictikaafka waxaa buriya ruuxu inuu ka baxo niyad ahaan uga baxo inuu ibdaaliyo oo muxuu ahaayey uu ka baxo hadduu gaar ahaan uu sunno yahay laanna saanku xusaan sheegnay waa inuu ruuxu niyeysto marka labaadna muddada iyadaa uu laasimo masjidkii uu laasimo waxaa ka mid a maalan
مسجد كأدكو اعتكاف سواء شرطي إنه يهي مسجد جمعة هي جماعات كلو أوجو هذا مسجد كي يهي مسجد أن جمعة هي جماعات لهاي لو ما اعتكاف كره يعني مثلا المصلى أو اللي سجدت كذا لكن أن جمعة لو تكنين لو ما اعتكاف كره مركا يعني وحويان صوم كسيد الصلاة إيو نقول كذا اعتكاف كسيد الصوم كي الصلاة إيو وحيالا معينة هو سيدا كوا واحد شبيه أو كلا أيود شبينا إياه مجره لكن وحيوب أنتهاي إنه روحه نيدي سوسن شبينين صون كي عنو كذا اعتكاف كي إسلام كان مددي أو كتلك علي أو تشوفه أو ماشي كنا قاعدين والله أعلم. جزاك الله خيرا الله أكبر يا شيخ دad waxaa jira badan oo ducaa codsanaya dad xanuun sheeganaya kuwa guurkii ka cabanaya howlo badan baa jira marka ducadaas aan soo gabagab insha Allah adiga ducaysta insha Allah taala ayaan masaajidka way ku badatay waxay wadaadadii noo soo duceeyaa badatay marka waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam saa uma badnaan jirin waxwaduusan waqtigii nabiga badnayna lama badiyo wixii waqtigii nabiga badnaan jiray waa la badiyaa wixii yaraan jirayna waa la yareeyaa hadiga nabiga iyo sunnadiisa sidaas sallallahu alayhi wasallam ruux saalixa iyo duco waa dhigi karta oo isleedahay khayr ku tuumayso laakiin asalku waxa weeye inaad adigu ilaahay barido inaad adigu barato rabbiga barido kuna kalsoonaato inuu ilaahay ku aqbalayo saasa asal laana cibaadad mar weeyaan horta baryadu waa cibaado ma kaliya ta aqbalka uu aad sugaysay inaad allah bariday ba waxay tahay cibaado ah oo ilaahay ajirkaaga qoraya waa marka labaad adoonku isaga la rabaa inuu muujiyo baahida uu ilaahay u qabo cidii baahidaada بدلكي باهيداada cid kale gudbin lahayd waxa ka fiican iyadoo banaan hadana in baahidaada adigu aad ilaahay u gudbiso oo Allah ku arko baahidaada wamid saddexaad ruuxu isaga la rabaa inuu barto adciyada caamada waxaan arki jiray waayii hore soo garmaysaan marka salaada loo ducayn jiray wad garanaysaan oo masaajida qaarkood iyo marka salaada laga baxo soo imaamku ma ducayn jiray dadkuna aamiin ma dhigi jirin oo lama kala tagi jirin aamiintu markay dhamaato ducada imaam waxay keentay caamadii inay baran weydaba si loo ducaysto wadaadkanaaba ugu xil saaran ba wax kasta saas daraadeed bashay ducaysan rabaan alfaatixa bay dhahay alfaatixa shirka markay gabagabeynayaan iyo waxooda markay dhamaysanayaan meeshay ducayn lahaayeen waxay ku leeyihiin الفاتحة فاتحة آخرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خلاص يعني الدعاء ذو فاتحة لأن الدعاء متقن عامدي صوبتك هنا السنة وحوي وذات كان وحو بوحي سارة وحال الروا مركا أديقا إلهي بري إنا بري الضرو أدعية الضرو أدو إلهي آد مركا إنت هذا بدل حق ربك أدو آدو هذا مركا مناسبات كقاركود أديك الوليبر وبلادونا يقصوا كبدعاء وإلهي يسوع بري لا بأس لما توصل كبرنامج كمدي هاي ساس درادي بدورة إن إلى هذا هلا يريو مسألة هبل باسوق صدي هلو دعيو هبل باسوق صدي هلو دعيو شنت صرادود ولا سوق صدي سود دعية وروح نساء بدها تشرينه قياستي أهان شرت وقت النبي نكو أكاية إذا هلا ندعو عيشتو أنت دبات الله كقاضو إلهينا فرج هينو كانوا أنت جرنا الله عافيه أنت قرب سنة قرب على الله كقاضو أنت دبات سنة دبات الله كقاضو أنت عافمات قبتنا عافمات كذا الله ودايو إلهي آفات كعام يبقى خاص كذا هينا كقاضو وهي جرنا إلهي تبارك وتعالى هينا كقاضو وهي صوص عضنا هينا قرب مريو مسلمين ترى دمانتود إلهي ودو بلافو قورتنا إلهي تبارك وتعالى قورت والدين تيمبا إلهي نار تحك حريو إلهي خاتمة هينوها قايتشيو أعماشنا الله أقبله لماذا دارود بنا الله يقول لي بانو وحي فتن يشرنا الله ينقح حفظيو أولاد يعروتا يدورك حولها دين يأدونك بنا الله ينو بركيو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.